Assalamu alaikum soo dhawaada maanta waxaan doonaynaa in la wadaago waa maxay brand ama waxa Soomaali hadda loo turjumo lagu yiraahdo astaan ama sumcad taasina waxa weeyaan waxay ahaan kartaa logo ama magac laakiin way ka sii weyn tahay intaa hadda la soo koobiyo a brand waxa weeyaan actually waxa dadka kale ay u maleynayaan businesskaaga inuu yahay ama siday ku arkaan dadka kale ayay tahay actually the brand marka muhiimadda ay leedahay inaad brand haysatid waxa weeyaan sidaad ogtahay kab hadaad iibsid kabta waa laga daba iibin karaa hadaad shaar iibsid shaarka waa laga daba iibin karaa laakiin brand hadaad leedahay way adag tahay in la koobiyeeyo marka dareenkan qofka sida marka looga keeno waxa weeyaan process oo dheer runtii waqti qaadanaysa oo u yeelaysa meaning iyo value to a company waa adigoo dhisaya personality for a company marka hadaad isweydiinaysid sidee loo dhisaa personality-gan company-ga waxa weeyaan waxyaalo la dhaho brand identity core values vision iyo mission-ka company-gaas uu leeyahay markaasay imaanaysaa muuqaalka kalarada iyo magaca company-gaas uu leeyahay marka waxaasoo dhan la isku daro ayay isku wada noqonaysaa the brand identity waana maaha wax lagu samayn karo dee maalin qura waqti dheer bay qaadanaysaa laakiin waa wax u baahan ama muhiim ah inaad dhisatid sidaad uga duwanaatid kambaniyada kale ama businessyada kale saan hore u dhahay kab waa la koobiyeyn karaa laakiin brand identity iyo the personality of a company way adagtahay in la koobiyeeyo waa inaad siisid dadka reason ay kugu doortaan ay kugu soo laalaabtaan maanta oo dhan oo dee xitaa qiimahaaga kor aad u qaadi kartid marka waxaasoo dhan marka la isu keeno ayaa ka dhigaysa brand